mahadsanaya bagaarka toban shirku waa inoo furmayaa waxaan rajacanahay oo aan ka codsanayna in la ilaaliyo asluubta modelada dhammaan waa duwaysaa modelada dhammaan waa dadka oo dhan shirkan waa inoo furmayaa waxaan ugu soo dhaweynaynaa aayadda qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله ينفع بآياتك القرآن الكريم الله ينفع فايدها القرآن الكريم وحتى واحد بلاب ما هي هبسعد كشركة waxaan marka ugu kiiranayaa inuu akhriyo warqadda ninka la yiraahdo barasaaka muqraado بسم الله الرحمن الرحيم habsocod ka shirka maanta barnaamijka aynu gelayno inta ku saabsan yahay habsocodka qaabka u soconayo insha Allah hadii la qadaro waxa inoo hogaaminaya shirka golaha wakiilada oo wakiil ka ah wakiil ka dhigteen Salaad Xasan Xaaji Saciid maadaama koorankii dhan yahay iyadoo tirada xildhibaanada gudaha golahu ahaayeen 29 xubnood haddana ay joogaan tiro dhan 21 xubnood shirkiina ku furmi karo koorankii waxaa si rasmi ah u gudagelaynaa hawl maalmeedkii oo ahaa kow furitaanka shirka waxaa daaha looga rogayaa iyadoo aayadaha qur-aanka kariimka ah waa soo marray qodobka insha Allah shir guddoonku wuxuu akhriyayaa habka go'aaminta shirka waa warqadda hadda aan akhriyayo waxaa ku xigaya warqadan akhriskeeda insha Allah dhaarinta xubnaha golaha wakiilada waa dhamaantood iyagoo wada jira habka dhaarta waa qoran tahay iyadoo qoraal insha Allah baa allow la sheegi doonaa qaabka loo dhaarinayo soo gudbista xubnaha musharaxa guddoonka golaha wixii musharaxa inay noqdaan baa marka ku xigaya inay keensadaan codsigooda 30 daqiiqo oo nasasho ah musharax kasta barnaamijka siyaasadeed iyo kan waxqabad kusoo bandhigi doono golaha hortiisa dadka musharaxiinta waxay qaban doonaan insha Allah mustaqbalka ayay soo bandhigi doonaan golaha dhexdiisa soo sheegi doonaan doorashadii guddoonka baarlamaanka habka doorashadu waa gacantaag warsoodima ku dhawaaqista natiijada doorashada iyo dhaarta guddoonka baa ugu damayn doona qodobkaas waa billahi tawfiiq waradinta soo saarsan
صح